gudoomiyaha degmada Qoryoolugud oo ka tirsan gobolka Bool ayaa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ka jirta degmada iyo kan horumarineed ee degmada Qoryoolugud. Waxaana gudoomiyuhu baaqo diray qurbo-joogta degmada Qoryoolugud waxaana ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarinta degmada Qoryoolugud oo sheegay inay tahay degmo xagga horumarka ka soo kabcaysa. nabadgelyada si fiican bay u deegaankaas imika nabadgelyo uga jirtaa. haddii runtii deegaanka xagga iyo kan deegaanka soka iyo shabaab waxay aad diyaar ugu yihiin sidii ay waxay gacan buuxda uga isugu siin lahaayeen waxyaa cid tuuga ee dadka xun. waxaanu ka sameynay gudiyo ka dadaala anaga golaha deegaankuba ka dadaala xaaladda wixii ka soo kordha. waxaan noo qabsoomay runtii xaruntii dowladda hoose waa noo dhisantay. waxaan noo qabsoomay kaabadii astaanta degmada. waxaan noo qabsoomay cashuurihii oo aanu bilownay oo hadda maraya suuqa sayladda transitka iyo cashuurihii sanad cashuureedkii iyadoo aan ognay waxay marayaan meel wanaagsan runtii iyay marayaan. insha Allah Abdullaahi Kariimna waxa laga yaabaa inaan ay la ciyaaraan dhaqso gobolka haddii ilaahay ka dhigo togdheer iyo buuhoodlaba oo hadday noo suura gasho aanu isleenahay dadka isugu soo dhaweeya aanu isleenahay tuugtii dhibaatada nagu haysay. sidaa darteed waxaanu codsanaynaa in loo soo magacaabo gudoomiyihii maxkamadda degmada ma laha iyada laftigeeda maadaama xaaladeeda nabadgelye ee meeshaas ay maalintii ilaahay soo godoba dhibaato ka jirta. waxaanu codsanaynaa in kabkii degmada naloo sii daayo baahida aanu qabnaana ay tahay mid aanu xagga nabadgelyada oo qura u adeegsanayno iyo horumarinta labadaba. degmada Qoryoolugud oo ka tirsan gobolka Bool ayaa waxa laga dareemayaa horumar ballaaran oo ka socda degmadaasi gudaheeda walow ay degmada aafeeyeen colaado dhawaanta ka dhacay deegaanada ku hareeraysan degmadaasi Qoryoolugud. Khalid Axmed Maxamed wararka magaalada Burco.